بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan maanta idin sheegayaa baan adag oo aan gaaray inaan ku dhawaaqayo anigoo ah madaxweynaha dowladda Puntland markii aan la tashaday madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha golaha wakiilada golaha wasiirada guddiga nabadgelyada dad xubno badan ku leh bulshada rayidka gudoomiyaha guddiga ku-meel gaarka ee doorashooyinka waxaan go'aaminay in doorashooyinkii dhici lahaa 15 oo biri ah isniina Puntland ka dhici lahaa dowladaha hoose aanu joojinay sababtuna waxay tahay markii aan qiimeynay mas'uuliyadda naga saaran xukuumad ahaan iyo madaxweyne ahaanba ilaalinta amniga xasiloonida iyo midnimada dalka reer Puntland markii aan aragnay aan aqoonsaday in kooxo isu soo bahaysteen khalkhalgelinta deganaanshaha iyo waxyeelada midnimada Puntland kuwaas ay ka mid yihiin kooxaha argagixiso oo doonaya inay si xun uga faa'iideystaan qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland markii aan tixgeliyay aqoonsaday dadaalkii dheeraa ee Puntland u soo gashay hirgelinta iyo meelmarinta nidaamka doorashooyinka oo asxaabta badan iyadoo tallaabooyin badan oo wax ku hore lagu soo guulaystay intii muddadaas dheer aan ku soo jiray 3 sano ee dheeraadka ah markii aan qiimeynay in qasoodayaal ama spoilers afka Ingiriiska waxa lagu yiraahdo oo gudaha iyo khalkhalgeliyaal dibadda laga soo kireeyay maalgelin la soo siiyay la soo abaabulay inay qayb burburina ka qaataan dowladda Puntland iyo xasiloonideeda abuuraan isku dhac waqtiga doorashooyinka oo degmooyinka ka dhacay markii aan aqoonsanay ama aan aqoonsaday khatar ku imaan karta amniga nabadgelyada iyo xasiloonida dadka reer Puntland anagoo mas'uulka nahay hoggaanka u nahay markaan qiimeynay himilooyinka dadka reer Puntland oo dowladda wanaagga iyo nabadda iyo cadaaladda ah intaasoo dhan markaan tixgelinay intaasoo go'aanana iyo wada tashina aan samaynay dowladda Puntland waxay si rasmi ah u joojisay maanta oo 14 bishu tahay doorashooyinkii deegaanka oo dhici lahaa birito 15 Juulaay iyadoo la qaatay go'aankan adag dowladda Puntland waxay shacabkeeda u soo jeedinaysaa mahadnaq ballaaran niyadda ay u hayeen una muujiyeen inay ku taageersan yihiin geedi socodka nidaamka doorashooyinka oo xisaabta badan waxayna dowladdu dadka u ballan qaadaysaa inay weli ku taagan tahay siina wadi doonto mowqifkeeda ahaa sidii barnaamijka nidaamka doorashooyinka ee xisaabta badan dalka looga hirgelin lahaa doorashana la qaban doono waqtiga ku habboon insha Allah ta'ala mustaqbalka dowladda Puntland waxay mahadnaq u celinaysaa beesha caalamka oo soo taageertay nidaamkan muddo 10 sano ku dhow ilaa waagii dastuurka la bilaabay hawshiisa marxaladaas badan oo marxalad badan lagaga guulaystay in geedi socodkaas oo ka hirgalo oo aad garan karaysaan oo ay ahayd mid ugu weyn meeshii lagu gaaray in waddankan dastuur yeesho iyo shuruucda loo dejiyay geedi socodka nidaamka xisaabta badan aad uga mahadcelinaysaa beesha caalamka taageeradaas
إلى وقت كان سعودي وعن كلو رجينا كلسونا كقبنا إن بيش عالم كان هاي تاجر هذا سيودي دونتو إلى نظام كان حسان تبغى نصير رسمية وقدر ما يستلمون دلك بنلان أو قدر ما يستلمون أنتي هور الواقع بتاعنا هاي تاي باجرون يهانتي يأسد السوق بتاعي هو يعلن ولما يشترك كريه بمية دولة بنلان وحي ويري سادات كريه بنلان أنا هو مدحني أهل ويري إن الدوران بدود أي شعليه وحي ما هذا وعلنا يسال إذا مدى أمني وأوتاجن وهيجن دفاع الكود وكهر تجاهي إتكستود يونس إن خلق الجليس وديع استوى كتير وعن كبو قاعدينية وكبو رنية إن مال دعنا إسكود قبصدان وأي من نمضوا يحصلون هذا إلاليان يجوا جروا صناعية أما أقون صناعية عدو جود يخترت اللي جوي هاي أمن جود يدقنا شهود يبرواغضوا يبراروا إلى حتى يكسروا دمائي إدي خطركوا أنا أي ميل وسوي جسدان أما هذا كوا جودها أما هذا كوا دي بدها ولا وذا جرنا يلا أقون صناعي هذه أدبان وين ما اللي أتاتين أنت إذا جيسني سا يركز تبع جوجين وأنا السلام عليكم ورحمة الله